السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كينا كوبcinta garaadka carruurta waa walaashin raxmo xuseen. maanta waxaan u hayaa waalidiinta cusub iyo markii ugu horeysay ay u wadayaan carruurtooda iskuulka, daycare-ka, xanaanada meeshay tahay cunuga marka ugu horeyso 5 sano ama wixii ka sii jar oo jira maxaa looga baahan yahay cunugaas iyo waalidkana maxaa looga baahan yahay. marka xoogaa tip yar idin siinaa insha Allah. waxaan rajeynaa inuu idin anfaco. marka ugu horeyso horta waa haddii waalid cusub ah tahay oo cunugaada ugu horeeyo curudkaadii aad meel aad iska geynayso adiga gacanta ku haysi jirta horta culays waa dareemaysaa adiga iyo cunugaba insha Allah. madadka marka maasha Allah waa wax fiican inuu cunugaaga ka weynaado meel ka aada, laakiin waa wax asna u fiican adna ku fiican insha Allah. marka intii marka saas dhicin maxaa sameyn kartaa? waxaa sameyn kartaa cunug horta mar golaaska dhex taga ilmo ficiiso wax yaqaan inuu taga u tagayaa. marka intii saas dhicin waxaa fiican in xaafad horta wax lagu baro oo xaafad wax ku bartid wax yar adi wax badan oo iska yariya wax oo baratid. maxaa kale ugu sii muhiimsan inaad bartid cuntadii kaligiis kaligeeda cunuga as inuu ismaamulo karo, cuntada cuni karo, kabayaashii kabaha inay xiro karaan, dharkooda inay xiro karaan. maxaa kale in ii sheeg musqushi uu isticmaali kara ama musqulaa rabaa uu dhihi karo. marka intaas inta loola dadaalo maxaa kale badanaa waxaa dhacdo in ilmaha maalinta u horeysay oo baska la iska saaro. marka taasna ilmaha dhibaato badan ay u keentaa. maalinta dhow weynaa waalidku raadinaya. marka waxaa fiican in waalidka oo meesha uu geeyo oo wax yar oo la soo joogo, wax yar la soo furisto cunugii oo faraxsan oo xoogaa degan oo caadi iska tahay. laakiin cunug baska la iskaga dhex rido xoogaa ma fiicno. marka badanaa waxaa dhacdo maadaama adna marka ugu horeyso cunug kuu baxaa uu yahay asna marka ugu horeyso ay tahay oo ama iyada marka ugu horeyso ay tahay badanaa waxaa dhacdo subaxdii iyadoo stress lagu jiro in la baxa oo kabta raadi, buugga raadi, qalinka raadi, kaas raadi. marka waxaa fiican cunuga markuu intuu yar yahay in la baro habeenkii intii la gaarin ka hor in waxaada meel sii dhiga alaabtaada kaas masii dharka birigisha la everything kan may sameysay wixii soo diyaar oo hal meel isku u ay saxdaan carruurta. subaxdii marka maxaa dhacayso cunuga degan maskaxiisa degan gaariga uu imaado ama adaa qaadid whatever awadid cunugaas marka maalintiisii iyo waxbarashadiisii waxay ku dhamaanaysaa deganaasho. laakiin cunugii subaxdii waa waray kab gashkac lagu soo waday maalintiisii dhan way qasmaysaa waxbarashadiisina sii la rabo maaha. marka in lasii baraa fiican oo ka xataa ka qayb qaataan 2 bilood u horeyso adi haddii cunug saas kusii wadid insha Allah way la qabsanaa. marka waxaas dhaa walaalay tibkaas riska la shargara waayo mar walba aan aragnaa carruurta yar riska oo iko stress hayso waxdan noola keen. marka way kale ka go'antaa. marka insha Allah taas tibkaas ayna subscribe garaa, share garaa, like garaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.